meydka gabar yar ayaa laga helay gurigan taasoo bulshada deegaankan u diraysa fariin naxdin leh. Booliiska ayaana bilaabay baaritaano si ay u ogaadaan qaar ka mid ah xaqiiqooyinka aan la mahadin, balse maysan ogeyn tani inay tahay sheeko aad u xun oo ay ka buuxaan naxdin, kufsi iyo dil bahalnimo leh, taasoo loo geystay Stefano Barnett oo ah gabar 23 jir. hase ahaatee waxaan isku dayaynaa inaan u koorgalno sida muuqaalkan aan ku ogaan doono dhacdooyinka mugdiga iyo xumaanta leh ee ka dhacay gudaha gurigeeda oo ku yaalay North Carolina. Stefano Barnett oo ahayd gabar aad u firfircoon, soo jiidashana leh, waxaa dhalay Carmon Barnett oo aabaheed ahaa iyo hooyadeed Molly Hodges, kuwaas wada deganaa magaalada Franklin County ee Virginia. Stefano Barnett waxay ahayd gabar naxariis badan, akhlaaq leh, dadka oo dhan ay u yaqaanaan gabadhii ixtiraamka. si kastaba ha ahaatee, Stefano Barnett waxay ahayd gabar aad ugu wanaagsan dhinaca isdhexgalka bulshada, iyadoo ku raaxaysan jirtay wax akhriska iyo ka qaybgalka waxyaabaha la xiriira tartamada dabaasha, taasoo waqtigaas ka qalin jebisay jaamacadda Roanoke College ee Virginia. Stefano Barnett ayaa u guurtay magaalada yar ee Raleigh si ay halkaasi shaqo ugu bilowdo, iyadoo heshay guri cusub kaasoo ahaa guryaha Bridgeport ee ku teedsan xeebta Lakeline, halkaasoo ay la degtay labadeeda saaxiib ee Diana Powell iyo Emily Metro. qoyskeeda ayaana ka hadlay farxaddeeda, madax bannaanideeda iyo deegaankaas cusub, taasoo ka dhigaysa wixii xigay oo ahaa wax aad looga naxo maalinkaas. May 22, 2002, Stefano Barnett nolosheeda ayaa si naxariis darro loo soo gaabiyey. gudaha xeyndaabka gurigeeda ayaa lagu weeraray, la ceejiyey, loo geystay xadgudub galmo, lana soo afjaray gudaha nolosheeda. balse saaxiibadeed ayaa sheegtay in Stefano Barnett waqtigeedii ugu dambeeyay nafteeda uu ka buuxay argagax iyo xanuun aan la qiyaasi karin. laakiin warbixinta booliiska ayaa daaha laga qaaday, taasoo ahayd dhacdo murugo leh. Stefano Barnett meydkeeda ayaa laga helay iridda hore ee qolkeeda jiifka, taasoo wax dharaana qabin, balse cadeymaha jirkeeda laga helay ayaa ah kuwo aan la dafari karin, iyadoo laga helay jirkeeda nabro badan oo ka soo gaaray cidda soo weerartay. sidoo kale qoorteeda, gacmaheeda iyo canqowgeeda ayay ka muuqdeen dhaawacyo badan, iyadoo si quusa u dagaalantay. isdifaacidda geesinimada leh iyo nabraha ka soo gaaray jirkeeda iyo awoodda jireed ay iskaga caabisay ayaa ku filnaawaysay inay ka awood badiso gacan ku dhiglaha. baarista kufsiga iyo dilka ee Stefano Barnett waxay ahayd mid aad ugu adkaatay booliiska, balse waxay qaadatay 3 sano dabagal aan kala joogsi lahayn, saacado aan la tirin karin iyo tilmaamo badan oo ay raaceen awgeed. aakhirkii waxay awood u yeesheen inay qabtaan shakhsigii mas'uulka ka ahaa dilka bahalnimada leh ee lagu soo afjaray nolosha gabadha 23 jirka ee Stefano Barnett. balse intaan bilaabin, waxaan jeclaan lahaa inaan ku xasuusiyo, haddii aadan subscribe dhihin, fadlan subscribe saaro channelka, gambaleelkana furo si aad ula socoto qisooyinka la yaabka leh ee ku saabsan kiisaska halista ah iyo dembiyada dhabta ah ee waqti kasta dhaca, taasoo adigana kuu noqon karta foojignaan. shirkadda dayactirka guryaha ee ka shaqaysa deegaankaas ayaa maalinkaas la soo xiriirtay guriga ay deganeed Stefano Barnett, balse telefoonka wax ka qabta way waayeen. ugu dambeynna mid ka mid ah shaqaalaha ayay u soo direen, kaasoo ugu dambeyn soo galay guriga, balse waxa uu la kulmay ayaa ahaa wax argagax leh. wuxuu arkay Stefano Barnett meydkeeda, kaasoo qayladaan afka qabsaday. ugu dambeynna wuxuu wacay uu la wadaagay booliiska si ay u eegaan waxa dhacay. baarayaasha ayaa haystay tilmaamo badan oo u muuqday inay runta u horseedi karaan, balse baaritaan dheer kadib rajadoodii ayaa meesha ka baxday, iyagoo fursadihii ay ka burbureen. Christopher Campaign ayaa ahaa qofkii ugu horreeyay ee ay booliiska ka shakiyaan, sababtoo ah dhaqdhaqaaqyadiisa guryaha ayaa ahaa mid muuqday oo zaa'id u badnay. sidoo kale shirkadda guryaha ayuu u shaqaynayay, laakiin ugu dambeyn caddayn waa lagu waayay. sidoo kale booliiska ayaa sheegay inuu jiro nin kale oo lagu magacaabo Richard Evans, kaasoo loo tixgeliyey inuu yahay tuhmane. baaritaankiisa ayaana la sheegay ninkan inuu lahaa sumcad xun, isagoo horay dhibaato ugu geystay gabdho badan oo dhalinyaro ah, taasoo shakiga kusii kordhisay. si kastaba ha ahaatee, ugu dambeyn booliiska ayaa la kulmay dhammaad xun, isagoo daaha ka qaaday inuusan mas'uul ka ahayn dhibaatadii loo geystay Stefano Barnett. dhanka kale, Stefano aabaheed ayaa la ildarnaa murugo iyo quus, isagoo cid kasta ka baryayay in gabadhiisa cadaalad hesho. xitaa wuxuu u ballanqaaday lacag cid kasta oo runta wax ka soo bandhigta, balse hantidii uu ballanqaaday awgeed ma helin cid wax ka og gabadhiisa. Stefano Barnett aabaheed murugada iyo dhibaatada uu dareemayay darteed, milkiilayaasha dabaqyada iyo maamulayaasha waqooyiga magaalada Raleigh ayuu ku eedeeyay ilaalo la'aanta dabaqyadooda awgood inay gacan ka geysan karaan dembiga. laakiin maalin maalmaha ka mid ah waxaan la filayn ayaa dhacay. markii ay wax walba u muuqdeen rajo la'aan,
waxaa soo baxay oo daaha laga qaaday natiijada DNA-da taasoo ay iska agdhawaayeen DNA-da laga helay jirka gabadha. Oktoobar 19, 2005 maalin wax walba isbedeleen. ugu dambeyn baarayaasha waxay heleen nin magaciisa lagu sheegay Edward Billington. wuxuu ahaa 35 jir dambiye badan hore u soo galay kaasoo xukunno badan hore u soo dhameystay. Edward wuxuu ahaa nin si xun u adeegsada cilmiga sayniska. wuxuuna ahaa khabiir maadada kimistriga aad u yaqaana sida loo maareeyo walxaha. inkastoo uu iska dhigi jiray nin yaqaano cilmiga nolosha soona bartay, balse wuxuu Stefano Barnett ku ahaa riyo xun iyo dambi uu ku sameeyey taasoo ay qabriga la gashay. sidoo kale had iyo jeer waxay ku taalo ku ahayd dadkeeda oo qalbiga ku qarsanayay wixii uu ku sameeyey. sidoo kale Stefano Barnett iyo gacan ku dhiiglaha wax xiriir kama dhaxayn. tani ayaana ku tusinaysa sida arxanka daran uu dilay. booliiska ayaana lagu amaanay tiknoolajiyadda horumarsan ee ay u adeegsadeen shaybaarka dambibaarista ee gobolka. dambibaarayaasha ayaana si adag u sameeyey baaritaano iyo cadeymo ka dhan ah gacan ku dhiiglaha. booliiska ayaa ogaaday in Edward uu tagay gurigeeda si uu u barto Stefano. waqtiyo badan oo ay wada kulmi jireen awgeed wuxuu ka dhaadhiciyey inuu bari doono cilmiga sayniska taasoo uu aad u yaqiinay markii dib loo raacay taariikhdiisa. waayo wuxuu ka baxay jaamacad ku taalla Michigan oo uu ka bartay cilmiga sayniska gaar ahaan kimistriga. jaamacadda markii uu dhamaystay wuxuu ka mid noqday urur ka shaqeeya sayniska. kadib wuxuu macallin ka noqday jaamacadaha waddanka mid ka mid ah isagoo ugu dambeyn soo degay magaaladii ay deganeed Stefano Barnett. inkastoo horey uu u geystay xadgudubyo galmo oo dacwado badan lagu soo oogay, haddana caddayn dhammaystiran looma helin. laakiin waxaa jiray hal mar oo 2 sano lagu xukumay, xabsigiisana uu soo dhammaystay. xitaa dembigaas caddayn laguma helin, laakiin CC kaamirada ayaa lagu arkay wakhtiga uu kufsiga dhacayay inuu galay guriga. ugu dambeyn saacado kadib uu ka soo baxay, inkastoo ninkan uu xariif ku ahaa baabi'inta caddeymaha. sababtoo ah sayniska uu yaqaanay ayaa ka caawinayay inuu adeegsado daawooyin isaga u gaara si uu u baabi'iyo caddaynta. balse booliiska ayaa tegay gurigiisa si ay u soo xiraan, laakiin way ka waayeen. raadintiisa ayaana wakhti badan qaadatay waayo meel kasta uu tegi jiray way ka waayeen. booliiska ayaana isku day kasta sameeyey si ay u helaan Edward, inkastoo goobaha traafikada, meelaha maqaayadaha iyo goobaha kale hoteelada sawirkiisa lagu dhajiyey. haddana dadaaladaas laguma guulaysan. balse kooxihii baarayay meydka Stefano Barnett iyo DNA-da ayaa arkay in jirka gabadhan lagu shubay maadooyin kiimikaalis si loo baabi'iyo caddaynta. laakiin khubarada shaybaarka oo iskugu jiray kuwa degmada, kuwa gobolka iyo kuwa federaalka sare ee dambibaarista ayaa isku dayayay inay baabi'iyaan kiimikadan gabadha jirkeeda lagu shubay. ugu dambeynna waxay ku guulaysteen inay ogaadaan dheecaanka meydka jirkiisa laga helay iyo DNA-da in guud ahaan ay isku mid yihiin DNA-da Edward, inkastoo weli la helin si loo baaro shahwadiisa. waayo DNA-da qof kasta waxay ku jirtaa database-ka dambibaarista iyo hay'adaha sirdoonka. balse booliiska ayaa baaritaan kale ku sameeyey gurigiisa iyagoo soo ururiyey 350 shay oo laga helay isla gurigiisa. booliiska ayaa soo bandhigay inay heleen hub argagax leh, 9 qoray oo ah kuwa yaryar, 2 qoray oo ah kuwa waaweyn iyo rasaas, sidoo kale 40 midi, 2 baangad iyo seef. sidoo kale waxaa xusid mudan qori ka mid ah kuwa meelaha dhaadheer wax ka toogta ee doobirka leh, kaasoo xabadihiisa booliiska ay uga shakiyeen lana xiriiriyeen dhimashadii aan la helin caddaynteeda kiiskii gabadhii la oran jiray Rabiica Hosman ee 1999. waxay ahayd dhacdo dila oo ka dhacday gobolka Michigan. inkastoo Rabiica la aasay, haddana booliiska ayaa caddayn u waayay kiiskaas. ugu dambeyn Edward booliiska ayaa gacan ku dhigay, xabsiga ayaana loo taxaabay. booliiska ayaana baaritaano badan ku sameeyey iyagoo DNA-diisa mar kale baaritaan ku sameeyey. sidoo kale shahwada ayaa laga qaaday si loo xaqiijiyo tii jirka Stefano Barnett laga helay inay isla yihiin. sidoo kale booliiska iyo baarayaasha ayaa baaritaano ku sameeyey qorigii ay ka shakiyeen in lagu dilay Rabiica 1999. kiiskii Rabiica ayaana dib loo furay. ugu dambeynna baarayaasha shaybaarka ayaa soo saaray natiijadii baaritaanka DNA-da iyo shahwada. sidoo kale baarayaasha kiiskii kale ee Rabiica ayaa iyagana soo saaray baaritaanka qoriga lagu dilay Rabiica iyo caddeymihii kale ee horey loo helay. labadii kiis caddeymahooda ayaana hal waqti lagu wada dhawaaqay. baaritaanka DNA-da iyo shahwada laga helay jirka Stefano Barnett waxay isku mid noqdeen tii laga baaray Edward. sidoo kale qoriga lagu dilay Rabiica ayaa noqday kii guriga Edward laga soo qaaday, balse booliiska ayaa su'aalo ka weydiiyey arrinka. hase ahaatee wuu diiday inuu jawaabo, laakiin inta aanan maxkamadda la geynin. January 2006
xabsiga dhexdiisa ayuu isku daldalay ugu dambeynna wuu dhintay inkastoo maalmihii dambe uu diiday inuu wax cuno. Abaara 2 habeenimo ayaa loola cararay hosbitaalka si gargaar degdeg loogu sameeyo inkastoo ay ku dadaaleen kooxaha caafimaadka. haddana 2:37 daqiiqo dhaqaatiirta ayaa ku dhawaaqay in 35 jirka Edward uu dhintay. ugu dambeyn labada kiis ayaa sidaas ku soo afjarmay maxkamad la'aan. daawada adigana sidee u aragtaa kiiskan? nagula wadaag qaybta hoose. waad ku mahadsantahay daawashadaada.